توسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا si qalbiga loo cilaajiyo macaankaas loo soo ceshado oo salaadii ay ku dhadhanto oo aad xusuusato inaad rabbiga hor taagan tahay nin baa i weydiiyey su'aal wuxuu yidhi maxaa marka imaamku xoogay dheereeyo salaada aan u kahannaa oon u nacnaa marka isagu waa daabit sarkaal askari oo wasaaradda daakhiliga ka shaqeeya weeye meesha aan fadhinana waa xafiis su'aashuu iska kay weydiiyey aniguna su'aashiisii su'aal kalean ugu jawaabay waxaan adigu haddii hadda daabit baa tahay halkaad ka shaqaysaa haddii wasiiru daakhiliya haddii uu caawa kuu yeedho oo lagu yidhaha ballan baa lagu sameeyey waxaa ku raba wasiiru daakhiliya inaad la kulanto 12 habeennimo ma tegi lahayd mise waxaad dhihi lahayd wallahi waqti dambe waaye wuxuu ma waa tegi lahaa wasiir daakhiliya keef seen u tagay waxaa dayib markaa tagtay wasiirku hadduu kaa yar mashquulay oo xoogay bannaanka lagu yar istaajiyey lagu fariisiyey meesha lagu sugo madiida ma waa sugi lahaa ay markaa hor fariisatay oo wasiirkii la sheekaysanaysay saacadda miyaad fiirin lahayd mar baad oran lahayd waa nugu dheereeyay hadalka mayuu yidhi wallahi yani xaqiiqatan haddaan kaaga warramo maya waxaa yidhi kaas marka wasiirkii weeye fakayfa amiirka hadduu ku yeelo amiirka waddanka ninka ugu sarreeyaa la yidhaha qatar meeshan joogo amiirka haddii uu ku yeelo ka warran taa iskaba dhaaf buu yidhi amiirka yani hadii umniyadeydaba waaye saan ku heli lahaa haddii lagu yidhaha amiirka waqti 12 habeennimo ka hor ma helaysid waa tegi lahaa leesh baan maxaa jira hada huwa alamiir waxaan anaa kuu sheegay sababta markaad ilaahay hortiisa aad istaagto oo kula dheeraanayo la hadalka ilaahay laakiin amiirka hortiisa uu hadalku kula dheeraanaynin aan kuu sheegaan laana waxaad yaqaansan tahay amiirka ama madaxweynahan hortaada jooga inuu xaajaadkaaga oo dhan kuu gudi karo waxaad u baahan tahay inaad ka heli karto waxyaalahaad sii xusuusanaysaa imise arrin baan ka dhammaystaa laanna waddanka oo dhan buu u taliyaa wasaarad kasta isaga xukuma xaajooyinka marka wasaarooyinka iyo kaaga xidhxidhan inuu kuu xallin karo ayaad dareensan tahay marka saas awgeed wakhti kasta ha noqotee diyaar baad u tahay inaad qaabisho wakhtiga uu kuula fadhiistana waad ku macaansanaysaa waad jeclaanaysaa inaad la sii fadhido waa sax weeye waxaan tan naga maqan ee aan la'nahay waa taas maca allah ilaahay waa hor taagannahay laakiin inuu xaajaadkeenna noo gudi karo ma yaqiinsanin salaaddii waa gelaynaa allahu akbar qalbigeennana waxay ku wareeganaysaa hebel iyo hebel tolow wax makuu qabanayaan rabbulcaalamiin baad hor taagan tahay makhluuqaadkanoo dhanna taxta qabdatihi isagaa wada xukuma boqorrada iyo umarada iyo adduunkao dhanba fii qabdatihi yafcalu maa yashaa marka haddaad og tahay yaqiinan dhab ahaan in addoon ilaahay aad tahay rabbigaa markaad hor taagan tahayna xaajadaada uu isagu kuu gudayo ilaahayna si dhaba uu qalbigaaga arrintaa uga daalacdo waxa waaye maadan dherarsateen waa ku macaansan lahayd dikrigiisa marka taa allahna waafajiya ikhwaani walaalayaal fii hadihi daqaa'iq almacduuda waxaan xusuusinaynaa rabbigeen jalla jalaaluhu allahu aladii laa ilaaha illa hu allah aan ilaah kala jirin rabbu hada alkowni huwa allah saxiix ilaahay annagu indhaha kama aragno adduunka intaan joogno in sha allahu fi alaakhirati waan arki doonnaa walaakiin ilaahay jalla jalaaluhu aayadihiisa kowniga ah iyo cajaa'iba qudradiisa uuna tusay waxay nagaga filan tahay inaan ku yaqiinsanno yaqiin dhab ahoo jaazima